بسم الله الرحمن الرحيم. waxaweyaan waxaan rabaa inaan ka dhawaajiyo qodob yar oo muhiima oo waliba dadka Soomaaliya jooga khuseeya guud ahaan Soomaaliya oo dhan ayuu khuseeya arrinkaas. waxaweeye cuntada Soomaaliya la geeyo aanay jirin hay'ad ama guddi eegta oo baadha cuntada waxay ka kooban tahay dhiciddeeda ama expire datekeeda iyo kimikada qaarkood lagu soo daro oo halis ku ah caafimaadka ubadka iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedba. dad fara badan, shirkado fara badan iyo dalal fara badan ayaa ka faa'iideysta in dalka aan nidaamka iyo maamulka lahayn ee sharcigu aanu jirin ama ka shaqayn in markaasi loo geeyo adeegyo dhinaca cuntada ah oo haddii ilaahay ku reehay wax yeeli karaya ummadda weliba carruurta iyo haweenka. cuntadaasi oo kimiko u badan oo dad fara badan ama mujtamaca Soomaaliyeed ay ka qaadaan cudurro halis ah oo indhawaalaba kusoo kordhiyay Soomaaliya. marka hay-adaha ama shirkaduhu waxay og yihiin in cid ka controleysa oo baadhaysa aanay jirin. dalkan Maraykanka hay-ad la yidhaahdo FDA ayaa controlsha cuntada oo dhan oo dadka ka eegta intaan la cunin oo odhanaysa markaa cuntadaas waa la cuni karaa iyo lama cuni karo. waxaa jira cabitaan fara badan oo Soomaaliya la geeyey oo dalalka weliba indheerta Soomaalida u taqaana laga soo qaadama Asia oo cabitaanadaasina markaa kimiko qura ay ka kooban yihiin. barnaamijkan weli waa aniga xaggayga saacadda waxay ka tahay 5 iyo malaha 20 daqiiqadood. qaybtii labaad ee barnaamijka ku cashee salax ama khudaar ama geedo oo kale oo ah cunto mufiida oo jirka qofka bini'aadamka geysiin kara si inuu caafimaad fiican helo. iyadoo intaan odhan karayo xilligan waa casho xaggayga. laakiin waxa weeye ummaddeeni dagaal baa lala galay dhinac walba ah. dagaalkaasi mid waddanka siyaasad ahaan loo burburinayo, dhaqaale ahaan loo burburinayo ayuu ku salaysnaa markii hore. laakiin imika dhinaca caafimaadka ayaa dhowr iyo tobankii sano u dambeysay lagala dagaalamayay in la siiyo cunto khaayis ama dhacday, cunto kimika aan bini'aadamku qaadan kareen la siiyo. waxaa lagu soo dejiyaa xeebo aan sharci ahayn oo aan ilaa ku leeyahay cashuur lahayn oo control doonida ama marka kuu xusido aan cidna waxba ka khuseen. marka dhul oo lagu socday ummadda qura ee wax loo qarin karayo ee la layn karayo ee la dili karayo ee la baabin karayo ee lacagtoodana laga qaadan karaya waa Soomaaliya. dhibaatadaas waxay saameyn ku leedahay xataa beeraha Soomaalidu ay beertaan siidhka la siiyo oo ah midhaha ay beeranayaan. midhahaasi cuntadu waxay doonaysa ha noqoto ama bariis ha noqoto ama ha noqoto hadhuudh ama ha noqoto gelley. waxaa la keenaa cunto midho hal mar la isticmaali karo oo mar labaad beertii ku samaynaya kimika weeye, mar labaad kuu beeri karaysa. marka waxay samaynaysaa in beertii ay gubato oo qofkii siidhka halkii berigii hore wasaaradda beeraha qaybtaa midhaha iyo siidhiska qaabilsan uu ka qaadan jiray siidhis lasoo eegay oo laab la geeyey ayaa imika Shiinaha waxaa laga keenaa siidh aada u raqiisa oo dadka laga iibinayo la doonayo inay wax ku beertaan oo wax ku soo saaraan maaha in laga baabi'iyo in ay wax beertaan.
waxaan isaguna imika ii yimi oo meeshaan ku ballansanayn saaxiibka cabdiaar oo aan sundaygii halkan iminkaan fadhiyo aan ku casbay geedaha baray keligii baa markii hore fadhiyay iminka ballaan aagno durba si isu bedelay iyo waxa uu soo qaatay cuntada uu soo qaatay ayaanu eegi doonaa cabdiaar oo cabdi maxaa soo qaatay alow halkani waa salad gooy iyo cabitaan karinada waa khudaartii oo dhan ba wax ka maqan ma jiro marka tan halkan ku cuni maaye tan xaafadaan u qaadanaya tugoo baan ka dhigayaa tan marka ilaahay aan noo cafo aad iyo aad alow aad iyo aad muddo waxaa ku saabsan Soomaaliya in la geeyo cunto expire ama cunto chemical aan bini'aadam loogu talagelin ayaa jirta marka dadka beeraleyda inta wax beerata ayaa siirka la siiyaa isaguna uu yahay mid dhacay iyo mid chemical oo la sameeyey la abuuray oo waqti gaama shaqeynaya oo imka dad sarreen beertid sarreenka dad isla siirka ku celi haddana ma baxayo beertu u gubanaysa sidee dadkeena lagu hortegi karaya intaan dagaalada kale iyo baaba'an iyo burburka la eegin in dagaal cuntada lagu qaado aliyo aniga qofka bini'aadamka hadduu u baahan yahay inuu noolaado wuu noolaan karaa laakiin qofka haddaan u baahnayn inaanu noolaanba maba noolaanayo qofka horta waa inuu diyaar u yahay ma fahmay nolosha waxay tahay qofkana sideeba u noolaan karaya hadda markaad dhulkeennii oo kale eegtidba waqooyi iyo koonfur labada markaad isku dirtid uma baahnaa siid loo keeno banaanka laga keenay ama ha dhaco ama ha cusboonaadee oo dhul ku baxa waxayna wax dhulka kasoo baxay wax naajiraala oo wax dabiici ah hadda waxaan aynu cunayno saladkani khudaartani waxaanaynu cunayno marka xabad liina oo shalambood ka baxday ama gabiilay ka baxday ama xabxab ka baxay berbera ama ceergaabo meeshaa rabta aduu waa kala dhadhan waa kala muuqaal xataa wax la bacrimiyey oo gacan lagu abuuray waxaad ku garanaysaa example yar oo fududba ku ah ukunta digaagga waa taqaanaa marka la bacrimiyo iyo markii sida caadiga ee dabiiciga ay u dhawato kalarka iyo udhexeeya dhifrka udhexeeya marka dadkeenu diyaar uma aha inay noloshooda caadiga iyo dabaraan dadkana shacibkaana lama eedaynayo oo dadkan runtii iyagu dembi ay leeyihin male laakiin meesha waxaa ka maqan hoggaankii daacadda u ahaa ee ummaddan ku hagi lahaa wax fiican iyo waxa quruxda badan iyo waxay samayn karaan waxaana soo beri adoo jooga cadan idaacadda BBC-da kasii daynaysay oo markab daqiiq ahaa oo dhacday waxay ahayd 1991 baan maranaya 92 ahayd in markab dhan oo daqiiqa oo dhacday berbere uu ka degay kabacdina 5 galabnimo aad warka ka sheegtay markii anigu waxaan joogay meel ila Kampala oo Uganda barnaamijkan oo dhageystay soo cajiraysan wali waraya daqiiqdii dhacday berbera laga rogay waa la iibiyay lacag baa laga sameeyay adiguna markii aad daqiiqdii sheegtay waxa kaaga yimid ba hawlo kale dadkan iyagoo shaqaynaya haddana baan la maqlin calo Soomaaliya waana shaqaynaya dhulka wada nadiifinaya marka waxaan oran lahaa war erayba calow muhiim ah ganacsatada Soomaalida meeshay doonaan joogaan waqooyi iyo koonfur meesha rabaan ka yimaadaan Ethiopia Djibouti ganacsatadu markay dadka dhacayaan markay dadka dhacayaan ay lacag ka urursanayaan waxay yiraahdaan waa business ama ganacsi waa socda marka dadka shicibka uu gadoodo meel socda aan hadalkay marka shicibka gadoodo ay yiraahdaan war waxaan dadka bixinay baa la dhacay ay ka hadlaan waxay yiraahdaan dadku waxay ay la mudaharaadayaan waa gardarro iyo xaq darro iyagiiba gardarro ku sheegeen markii waxooda boobayaan markay daqiiqda dhacday saliidda dhacday timirta dhacday wax walba loo keenayo waxay dhan ganacsi baan ka shaqaynaynaa shicibkii markay ogaadaan waxay dhacay hadday ka mudaharaadaanna waxay odhanayaan shicibku waxay wadaan tashuush iyo balaayo kicin bay wadaan marka waa dad dhinacii ganacsatada noo dhacayso dhinacii wadaadadu noo dhacayaan dhinacii dowladdu maamulada jiraan ay dhacayaan marka cabdu Soomaali wax beerideeda waxa soo gaarsiiyay ilaa eedhiga halka ugu sarreysay waxa ahayd dadka la yiraahdo Bantu oo labada webi jiinkooda deganaa dadkaas waxa ahayd dad production fiican soo saari jiray dad xoogooda isticmaali jiray dad aan wax bariin dad aan dollar loo soo diray dadka imika waa wax la laayo waa wax la gubo waa wax la eriyado
dagaalku ma aha cuntada la keenaya xitaa kuwii beeriyay baa laga saaraa dalka ayaa laga saaraya si inta kale cawaanka ee dee shadis roog sitee $100 dibadda ka sugaysa ee aan waxba beeran karin aan meesha ugu hadho oo dagaal xagga nolosha ah waxa dagaalada cuntada la siyaasadeeyay baan ku sheegay Somaliland muuska caadiga waxaa loo geeyaa muus yar intaa la eg fartaa la eg oo haddii halkaa la dhigo markaa madoobaanaya oo Ethiopia laga keenayo eegada waa la siyaasadeeyay muuskii afgooya iyo jamaama iyo jinaale ka imanayay xamar burca markay ka baxaan Somaliland xamar bay soo qaadan kareen 9 baabuur ee waa ganacsi siyaasaddu meesheeda Somaliland haggooda iyago in xamar haggooda iyago in Puntland haggooda iyago in waddanka laakiin ummaddu sidee u noolaan ay u noolaanaysaa marka ilmihii Hargeysa joogay ama burca joogay ayaa laga cuno qabateeyay in muuskii quruxda badnaa ee Soomaaliya la siyaasadii oo la yiraahdo Soomaaliya waxba isku meel darsan weyn kala goonay marka muuskiisa ma cunayno bambeelmadiisa ma cunayno marka dadkii waxaa helaya inaanay muus helin inaanay biyo fiican helin inaanay khudaar helin oo dhinacan kale ay ka soo qaadan lahayn ganacsiguna waa wax siyaasadii waxa la geliyay marka Ethiopia ayaa ka lacageysatay qaadka millions of dollars ayaa loo geeyaa cash bay geysaa Somaliland iyo Soomaaliya oo badankooda laakiin qaybta Somaliland oo kale cash baa la geeyaa qaad bay ka soo qaataan marka saa waliba iyaga lagu gumeystaa marka ummaddan waxa loo baahan yahay warbal ag reero iyo qabiilkani waxaad ku wareerteen isku bahaysta hadda doonaysan kursi isku qabsada hadda doonaysan laakiin meel aynu isugu nimaadno waana jirtaa Bakool iyo Jubbaland ilaa Sayla ilaa Calula ilaa Banaadir meel aynu ka simannahay oo cuntadeena iyo caafimaadkeena iyo nolosheena Soomaalinimo ay ku kubci karto waanan lana oo ninka reer Somaliland uu ka xanaaqi karaya oo ninka reer bariga uu ka xanaaqi karaya oo reer Kismaayo uu ka xanaaqi karaya in cunto dhacday ama daqiiq dhacday ama sonkor kimika laga sameeyay ama cabitaan kimika in ummadkeena soo koobaya waxaan u baahanahay guddi iyo dad aqoon-yahan ah oo ka hadla haddii ay ku reeyahay in dhinaca cuntada xoog la saaro cudurro fara badan oo ummaddeena lagu arki jirin waxaa keena oo ugu weyn waa kimikada maxaad ku soo xidhi lahayd barnaamijkeena hadan baan dib u gelayaa siyaasadda haddii xabadii tamaandhada ahayd ee berbere la keenayay baa la siyaasadeeyey xabadii kalluunka la qaaday la siyaasadeeyey waxaan ku arkay meel la yidhaha Madagascar يعني عقلي سليم كم الصينية موت ليدي دولتي الحين سومالي شرتي واحد شرتي ورشد لو نشري ورشد كلهم كالاسقري إلا هدوان هيا يدو فيليون وان هيا يدو مرخاتي عن عدة دونين بان هيا كلهم كلا يسوق على حيبها صومالية ماشي دون الكيمة ده أنا بربرها كيمة ده أما بوساسو أما حمري إكسبايا كيمة ده لنا حيبها وحلو صفر سمية لو ده سدي أما قصعدها لو قرو ميل إلى مدغشقر iyo Mombasa waxaana ku qoran lasqoray fish toonadii lasqoray oo sideedii ba ku qoran dadka qaarkii markay wadiso waxay ku leeyihiin abdu arrintan way jirtaa waan aragnaa moogta laakiin day ka hadli karaya maamulada ka taliya maamul goboleedyada Soomaaliya ba bis barakiibtii waxay u ogolaadeen in kalluunka ay qaataan kalluunkaagii oo sidiisii oo magacii lasqoray watana waxa dib loogu farsameeyay iyo kii berberaba waxaa lagu farsameynayaa Afrikada kale waa kalluunkaagii iyo waa magacaagii waxaan oran lahaa markaa shakhsiga shicibka ninka doonaya inuu xabadda tamaandhada siyaasadeeyo Soomaaliya hadda kala go'aysi hadday istageysay haddii kala bayada u taala laakiin xabadda tamaandhada kiimikada lagu sameeyay ee dhulka Itoobiya ka baxda ama China ka baxda ama Brazil ka baxda war waxa ku dhaanta shakhsiga inaad kacdoon ka samaysid oo noloshaada u kacdoontid ana waxaan kale arkay ajaa'ibka oo aan maamulada aadan la yaabin dadka maamulada la yaabi maysid sometimes waxaad arkaysaa Hargeysa oo kale ama Laascaanood ama meelaha kale oo dhanba Soomaaliya waxaad arkaysaa reer guri bay degan yihiin guriga ay degan biil baa dibadda lagu soo diraa guriga waxa wax ka cunaa 15 qof wax ka cunaa intuu suuqa lacag u dooran lahaa ama shahaadi lahaa qof war gurigiinii baa la dhisayay kuuliga ka mid noqo wasaadida ka mid noqo jeegina lacagtina qaado oo dib u geli marka waxa oran war shacabow idinkay dantiina tahay inaad beerihiina dhisataan inaad horumarkiina iyo caafimaadkiina ka shaqeysaan hooyo dambe oo gobolmaysa inaanay jirin war maamuladan kala saara siyaasadda iyo horumarka bulshada iyo beeraha iyo noloshiina wixii ahba aloo maasanta waa haga aad abdu maasanta oo idin mar kale ku cashee oo marka qaarkood ku qaday salad iyo khudaar
inkastoo cabdiaar annagoon maanta ballansanayn uu iska soo galay meeshii aan salarka ka yar cuni jiray muraahaadda uga arkay halkanaa jidka maraysid koonahaas iga soo arkay muraayadda dabeetana daf si kastaba ha noqotee waxa weeyaan aynu soomaali haddaan nahay aynu ka tashanno sidii aynu u noolaan lahayn iyanan ka tashanin sidii aynu isu dhammayn lahayn oo aynu ummadda caalamka ku nool aynu uga tirtirmi lahayn ilaah baa wax nooleeya laakiin talo wadaag aynu yeelanno sidee u noolaan karaynaa waxbay nagama gelin kuraasta dadka u ordaya qabaa'ilka iyo waxaas laakiin muhiimaddu waxa weeyaan waxbaynu noqon karnaa waxbaynu samaysan karnaa haddii maskax caafimaad qabtaa oo aynu isu keenno hadday kugu qafilnaato un reer hebel oo haddii qof kuu istaago aad tiraahid reer hebel baa kuu istaagay oo haddii qof ilxun kuu eega tiraa reer hebel baa eegay waxa weeyaan ummadda oo dhan caalamkaad ka hadhaysa dhammaantiinba nabadgelyo ayaynu kaga tegaynaa sidaa iyo kuna wanaagsan